مسؤولين حزبك معارضك wadaniga gobolka Sool ay weheliyaan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood ayaa maanta munaasabad ballaaran u qabtay ururo ka dhisan degmada Yagoor ee gobolka Sool kuwaas oo ka soo diga rogtay xisbiga kulmiye kuna soo biiray saaka xisbiga mucaaradka wadani waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadaniga gobolka Sool xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood ee xisbiga wadani gudoomiyaasha deegaanada tuulooyinka Samanka Ari Cadeeye Dar es Salaam iyo Yagoori shacabadu tiro badan oo taageerayaasha xisbiga mucaaradka ay wadani iyo ururada ka soo diga rogtay xisbigaasi kulmiye waxaynu isugu nimi in aynu soo dhaweyno ururo badan oo inooga soo diga rogtay xisbiga kulmiye waxaan kaloo ka hadlayaa oo aan halkan ka ilaaminayaa ururka kale ee degmada Yagoori ururka hore waxa la yiraahdaa qabya tire ee soo diga rogtay ururka kale tala wadaag oo iyaga laftigoodu soo dhaweynaya walaalahooda kale ee ka soo diga rogtay oo ay ku midaysan yihiin magac urur degmada Yagoori dadaalka iyo midnimada wali waqtigu waxyaal badan buu ku baraa laamigii bay ku taalaado hatta umaleyn ma caasimad Hargeysa inay gaadhay in diray xisbiga qarankiisa direyska hablo ka dhigtaan oo jilbaaba ay ku xaragoodaan ka samaystaan hatta caasimadu ma gaadhin alxamdulillah waa dadaal aynu dheernahay ummadda Yagoori waxaan aaminsanahay hadaan wadaninahay siday dadka ugu listay inaan loogu hambayn baanu aaminsanahay annagu hadaan xisbiga wadaninahay waxaan fikirkaygu yahay hadii aan xukunka insha Allah ku guuleysano inaan Yagoori developmentkeeda wax ka qabano oo warka Yagoori waanu haynaayo xagga waxbarashada kale dhibaato weyn baa ka taagan xagga muxuu ahaa biyo kale dhibaato weyn baa ka taagan Yagoori waa magaalo ka duwan magaalooyinka kale because waxa waa meeshii u horeysay ciidanka Soomaaliland ay joogeen abaal gaar ay lahaayeen Yagoori magaalooyinka kale ka abaal badanta marka wax in fact xaqiiqda laga hadlo salaan waxa farxad weyn ah maanta daayirtan faraha badan ee ururadan baaxadda leh degmada Yagoori haday tahay ururkii hore u joogay iyo ururka cusub ee qabya tire sida garashada leh aqliga wanaagsan talada wanaagsan leh ee u garteen maanta cidda ama xisbiga dalkan taladiisa lagu aamini karo ay u xuseen ay uga soo fikireen aad iyo aad uga mahad celinaya goobtan taaganahay waxa runtii xafiiska wadaniga degmada Yagoori anna waxaan ku hadlayaa afka degmada Ari Cadeeye xisbiga wadani halkan waxa iga muuqda dadweyne kuwa sharaxan calanka wadani dhamaantood aad baan u salaamayaa waan u mahad celinayaa annaguna waan ka soo qayb galay xafladda annagoo ku hadlana afki degmada Ari Cadeeye kana socono xisbiga wadani ana ku hadlaya afka afayeenka ururka dhalinyarada degmada Yagoori qabya tire Organization of Development and of Yagoori dhamaan waxaan anagu nahay dad isku tiirsan oo isku mowqif ah oo isku hadala oo isku fikra waxaan fikirkayga iyo aqoontayda iyo aqligayga aan ku raacnay inuu horumarkayga iyo isbedelkayga uu ku xiran yahay xisbiga mucaaradka ee wadani anagoo ka soo digarognay xisbiga kulmiye aan leena hadaanu nahay dhalinyaradii tala wadaag waxaanu markii horena aqligaygu nasiiyay iyo cududeeduba inaanu hiiliyo hooba la garab taagno xisbiga isbedel doonka ah ee wadani maantana waan la garab taagnaa waxaan kaloo soo dhaweynayaa walaalahayaga soo diga rogtay ee ka dhiidhiyay xumaantii uu kula kacay ninka mas'uulka isku sheegaya xisbiga kulmiye ee saasan ku noqonaya madaxweyne qaadeen ee qalbigeena u furteen inaad boqolkiiba boqol sida codkana u bixisaan mid miyi iyo mid magaalaba oo xisbiga maanta inaga ninka inoo ku jira waxaan u maleynayaa inuu inoo shirban yahay Cabdirasaaq Khaliif Ahmed wuu shirban yahay waynu la soconaa aynu yaani wax qabadkiisa iyo waxtarkiisaba waxa sabeenkan lagu guurayaa soodinkeeda leh qofkan saaka taageerin oo saadambaad gar dhanka kale gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sool ay weheliyaan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga ayaa maanta xariga ka jaray xarunta uu xisbiga wadani ku yeelan doono deegaanka Dar es Salaam ee gobolka Sool iyadoo ay taageerayaasha xisbiga wadani ee deegaankaasi ay laamiga magaaladaasi kaga hor yimaadeen wufuudaasi iyagoo u galbiyay xafiiska uu ku yeelan doono xisbiga mucaaradka ee wadani deegaanka Dar es Salaam ee gobolka Sool wa Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Gurey TV caalamiga Somali News deegaanka Yagoori ee gobolka Sool